waxaad fiirsaan hal qisa baan idinla wadaagaya nebi maxamed sal allah alay wasalam bini aadamka dadku way lacagta xoolaha dadka adduunka waa la jecel yahay ayaa maalin maalmaha ka mid a sida ibnu isxaaq siiradiisa uu ku warinaya wuxuu leeyahay saxaabi lihi jiray kacab alquradi yaa wuxuu ii sheegay nebiga wuxuu wariyey ninka la dhihi jiray cutbata bnu rabiica wuxuu ahaa sayidka qowmkiisa ciddiisa wuxuu u ahaa ninka odayga u ah nabadoonka laga dambeeyaa quraysh oo odayaashii qureysheed oo dhan oo fadhiya ayuu nebi maxamed waxaa la arkay dhinacaas keligii fadhiya kacbada meel bannaankeeda markaasuu wuxuu yidhi qurayshay maxamed maanta aan u tago oo aan arrimo u bandhigo lacalla inuu naga yeelo qayb ka mid a wuxuu rabaa nebiga inuu tarkiibiyo adduun wax tuso uu fiiriyo uu dareenkan alla u qabo iyo diintan inuu la challenge gareeyo oo uu dhaho you choose this or you choose this marka nebigu uu la soo fariistay nebigu aad buu akhlaaq badnaa markaasuu wuxuu ku yidhi maxamedow yabna akhi walaalkay wiilkiisiiyow inaan kula hadlaan rabaa nebigu wuxuu ku yidhi qul yaa abalwaliid asmacu abalwaliidow hadal waan ku dhegaysanayaa nebigu saasuu ku yidhi sal alla alay slam nebigu aad buu eeda badnaa waa nin gaal ah ogow hadal waan ku dhegaysanayaa markaasuu wuxuu yidhi yabna akhi innaka mina xayثu calimta meeshaad og tahay baad naga joogtaa annaga marka la fiiriyo xagga cashiirada fi lcashiirati xagga cashiirada iyo wanasab xagga nasabka waxaa tahay nin qaali nagu ah waa tahay walaqad atayta qawmaka biamrin cadiim wax weyn baad noo keentay dhib baad noo keentay faraqta bihi jamaacatahum jamaacadooda waad kala qaybisay wasafahta bihi axlaamahum dadkoodii odayaasha caqliga lahaana waxaad ka soo qaaday wax ma garato waxba aan garanayn baatil sanamyo caabudo waxba aan kala ogayn ayuu yidhi wacibta bihi aalihatahum wa diinahum diintoodii ilaahyadoodiina waad ceebaysay fiiri su u wadi buu wuxuu yidhi kuwii odayaasha ahaayoo dhintay oo naga horreeyeyna waxaad ku xukuntay baadi inay ahaayeen walaa adeerow umuur baan maanta ku bandhigayaa ee iga qaado dhowr arrimood kow wuxuu yidhi fiiri arrimuhu ninkan u soo bandhigayo haddii waxa aad sheegayso aad adeeroo maal ku raadinayso maal haddaad rabtid quraysh maalkeeda dhan intaan kuu jamcinaa waxaad noqonaysaa ninka noogu taajirsan ninka ugu lacagta badan baad noqonaysaa quraysh oo dhan hadda qofka mu'minka waxaa dhici karta shilimaan yar inuu adduunkiisa dhan ku gato diintiisa dhan uu ku gato iyo adduunkiisaba oo u hooga khasaaro shilimaan wuxuu yidhi haddaad raadinaysa magac waxaan kaa dhigaynaa ninka noogu sharafta badan oo wax uusan go'aaminin aan la go'aaminin waan kaa dhigaynaa meel aadan fadhinin amar laguma go'aaminayo haddaad rabtid madax inaad noqotid waxaan kaa dhigaynaa boqorkeenna annaga dhanna na xukuma haddaad rabtid inaad heshid gabar waxaan kuu guuraynaa gabadha quraysh ugu qiimaha badan haddii wuxuu yidhi waxa ku haya ay tahay jin iyo waali shaydaan ooda kontarooli karinna waan kugu dadaalaynaa in ilaa aan ku daaweyno qofkuna qofka ka jiran kama daala ilaa uu daaweeyo si u daba socdo intaa marka mid dooro intaas haddaad rabtid waa ku siinaynaa nebigu markuu dhammeeyey yuu aamusay ninkii nebigu wuxuu yidhi awaqad faraqta yaa abalwaliid abalwaliidoo ma dhammaysay fiir nebiga akhlaaqdiisa innaga markaa meelo fadhina waxaa gelaysaa jaqjaqjaqjaq kana hadli kana booqi kana hadli ma dhammaysay markaasuu yidhi nacam waan dhammeeyey suu yidhi dhegaysa anigana marka nebigu waxba ma dhihin wuxuu yidhi bismi illaahi araxmaani araxiim xaamiim tanziilu min araxmaani araxiim كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بين وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين wuu waday ninkii marka intuu wareeray qur'aanku waa power buu leeyahay awood buu leeyahay ayuu waxaa la yidhi indhihiina wuu khushuucay gacmihiina gadaal buu dhigtay wuu cuskaday gacmaha waxaad mooddaa in isaga dhan baa la hayo suusaa ugu fadhiyey markuu nebigu fa in acraduu
فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود هداد جيستان وحان إذن كدقيا هدي جيستان بقال لي وحي عاد يثمود كل عاي أوكلا مركو هالكا مرأي ابن كثير وحورنا يا أثر وليه أيو أفك قبت النبي وحي إلهي بان كود داري يرحمك هالكا كجوجي إلهي بان كود داري هالكا كجوجي بقاسو النبي وحي واد مقاشي أبو الوليد أذا مركا قوان كلا نيكا وكعي سوى اللغة جيدة يبوكعي قريش بقوتغي وحي قريشي horta waxay dhan markuu soo noqday walla abul waliid wuxuu la yimid warku ku tagay waraan hayn ninka soo socda ma qumana asaga waa dandaansan yahay waa nin asaga dhan bajid baysan weey markuu yimid wuxuu qurayshay amar weyn baan idin la imid wax weyn baan maqlay anigu gabayaa waan maqlay waan aqaana ninkan gabayaa ma ah sixroolana waan arkay waan aqaana ninkan sixroola ma ah kaahin iyo wax sheeg waan arkay ninkaana kaahin ma ah nimanka fooxiyo wax sheeg faaliya maxaa yiraahdaa fortune tellers aduu mustaqbalka ka hadla wuxuu yiri ninkan wixiisa wax aan caadi ahayn weeye ninkan farax ka qaada asaga iyo dadka u kala dhaxbaha haday ka awood badiyaan waa idinka kaafiyeen hadii uu ka awood badiyana waa wiilkiini hadduu madax noqdana madaxtinimadina waa tiini madaxtinimadiisu hadduu sharaf iyo sharaftiisu waa tiini iska daayay wiilkan